saad fiidiyogan u furtay albaabada jannada Allah subhanahu wa ta'ala kuugu furo bal ila daawo muuqaalkan u sheer garay asxaabtaada nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa nin u yimid wuxuuna ku yiri ninkii faqaala ya rasuulullah man ahaqu an-nas bi husni sahabati dadka yaa igu xaq badan rasuulka Allah inaa wanaajiyo saaxiibtinimadooda nabiga wuxuu dhahay sallallahu alayhi wasallam ummuka hooyadaada summa man ayuu yiri ninkii yaa xiga rasuulka Allah nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay ummuka hooyadaada ninkii mar labaad iyo mar saddexaad ayuu ku celiyay wuxuu yiri yaa xiga rasuulka Allah nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay ummuka hooyadaada ninkii mar afaraad ayuu ku celiyay summa man ayuu yiri rasuulka Allah yaa xiga nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri summa abuuka kadib aabahaaga bal u fiirso inta tirada jeer ee lagu soo celceliyay hooyada oo lagu yiri hooyadaada markii afaraad ayuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam aabahaaga bal samaanta sideen ula dhaqmeynaa hooyo waxyaabaha indhaheenu qabanayaan ma ahan wax loo adkeysan karo anagoo nagu soo daala diinna la baray cilmi aqoon maada iyo diinatay doontaba ahaatee dib iyo dheef nala soo mareen sideen u dhaqmeynaa anaga sideen u dayacan nolosheena waalidiinteena ay nagu soo tacabeelan soo dhabankooda maxaa la dhahaa dhib walba u mareen soo anaga dhabankeena u dhaldhalaalo ayuu midkooda u madoobaado oo u dukoobo oo u fildaroobo saa anaga u qurux badnaano walaalayaal aan wanaajin xiriirka hooyadeena iyo aabaheena waalidiinteena dhabaanteena u sii sheer garay asxaabtaada. Assalaamu calaykum.